madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa loo doortay madaxweynihii tobnaad ee Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud uu waxa madaxweynaha ka ahaa Soomaaliya 2012 ilaa 2017. Hadda wuu dib u soo laabtay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Soomaaliya. madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa si nabad ah xilkay u wareej jiray maada shaqsiyan noqon doona ra'iisul wasaaraha cusub, balse shacabka Soomaaliyeed ayaa aad u farsanay dimuqraasiya iyo nabad iyo nolol ayaa dib u soo laabtay Soomaaliya. soo socotay muddo caawa waxaan rabaa halkan inaan ku soo dhaweeyo وهاكي مدحوينها عصب حسن الشيخ وان ليه همبليو إلهي وحنا قبرينا إن هوشان تبقى بضن وإلهي أسهله هاو آدي أدو أدقوية واحد سهلا معها كل جين أن إلهي أبرنه إيو هوشان أفوضيه أننا وحنا موجودين كل جين بقى سوليدارتي وضع شقين سودوين مدحويني سودو إلهي هوشان تبقى بضن الله يكون سهل.